waxaan rabaa su'aasha inaan weydiiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan hadday ku kulaato ay qaado inaan xooga wadaniinta kamid ahay laakiin su'aal fikirkeyga ka timi weeye mudane madaxweyne ilaa iyo maanta Jubbaland la asaasay adiga baan hortaagan guri baa xiratay waa isdooratay ma la dhihi karaa waxaad madaxweynaha farmaajo ku canaanaysid wax la mid ah in adigu samaysay waa maqsantahay بسم الله الرحمن الرحيم صاحبك horta uu mahadsan yahay su'aashaas waxaan rabaa in aan u sheego Jubbaland waxay ka mid tahay isteediyada waa isteedkii labaad ee heer federaal ee la abuuro markii Jubbaland laga soo tago kii labaad buu ahaa ay min Puntland laga soo tago xaalad adag iyo waji adag iyo environmentiga deegaanku u leeyahay waana caqabado badan iyo dhib badan ku lahaa waxaa jirta hal arrin oo saameynteeda lahayd teeramkii koowaad markaan ka soo tagnay teeramkii labaad ee doorashada waxaa jirta dabayl siyaasadeed oo Soomaaliya socotay oo dawladda maanta xukunka haysaay ay ka shaqaynaysay oo ahayd isteed walba inuu ka soo baxo qof iyagu ay gacanta ku hayaan ay la macaamilayaan waxaad ogtihiin xilligii doorashada Jubbaland ay jirtay over dhaqaale iyo cabsigelin amni labaduba inay jireen qof kastoo Soomaaliya xoogaal buu ka ah waxaan qabanay guddi doorasho waxaan casuulay korjoogto caalamiga waxaan ugu yeedhnay dawladda federaalka roolka ku lahayd waxaan filayaa inuu gudoomiyay guddigu fadhiyo laftirkiisu caawayna la joogo doorashadii markii la bilaabay musharaxiinta ay soo gudbiyeen dawladdu waxay bilowday xiriir aniga layla samaynayo xiriirka layla samaynayo laba nooc buu ahaa in la ii soo diro la waxaan doonaynaa nalama jaan qaadi kartee lacagta qaado iska tag maya ma aha hadday socon weyday waxay noqotay cabsigelin iyo culays amni in la bilaabo waxaan u malaynayaa doorashadu markay dhacaysay xoogaal baad ka ahaydeen ciidamo shisheeye oo yimid garoonkoo laga celiyey colays siyaasadeed oo la isku dayey ilaa xad khalkhal kasta oo la gelin karayo oo amni darraha in la isku dayey Jubbaland in lagu sameeyo shacabkii way isku guntameen waxaana u soo baxday burbur iyo dagaal sukeeye in iyaga dib loogu celinayo annana waxaanu qaadanay doorashada xaqa dastuurka uu noo siinaya inaanu u qaadano sababtoo ah ofarka 20 milyan ee dawladdu leedahay qaado xagee ka keentay ciidanka shisheeye ii imanaya aniga xafiiskayga intay igu yimaadeen iigu hanjabaya ile sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel xaqa yaa u siiyey sayse ii odhan karaan taasaa keentay markaa arrintaasi inay wejigaa yeelato laakiin waxaan filayaa haddaadan saaxiibow si kale uga maqnayn life buu ahaa